wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada galabnimadan iyo barnaamijyada xiisaha leh idinkuugu talagalnay oo ay kamid yihiin wiilal iyo gabdho Soomaali ah oo qirteen inuu jacayl ku dhacay kadib markay daawadeen taxanaha Herjaya. Taxanaha Herjaya waa mid kamid ah taxanayaasha caalamka ugu caansan waqtigan wuxuuna kulansaday arrimo badan sida inuu yahay mid ka hadlayo arrimaha qoyska waa jacayl taariikh hore sidoo kalena waa mid khiyaano iyo argos lagu soo bandhigay. Taxanahan oo sheekadiisa buug lagu qoray ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay daafaha caalamka fakti hore markii uu bilaabanayay hadeerna season 3giisa ayaaba la sugayaa. Haddaba sheekada aan maanta idin hayno waxay tahay in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo jacayl dhab ah ku dhacay kadib markay daawadeen taxanahan Herjaya. Dabagal badan oo aan sameynay iyo dad badan oo qirteen arrinkani waxaan ku ogaanay in arrinkani uu xaqiiqi yahay oo markii hore oo loo maleynayay inaysan xaqiiq ahayn. Wiil Soomaali ah wuxuu yiri isagoo baraha bulshada arrinkan kaga hadlayo markaan daawaday Herjaya waxaan dareemay jacaylka dhabta ah qof aan awalkii hore dareemi jirin inaan jeclaa ayaan dareemay inaan dhab u jeclaaday. Run ahaantii taxanaha Herjaya nolosheedii wuu ku weyn yahay ayuu yiri wiilkani. Gabar kale ayaa iyadana tiri in Herjaya ay ku xasuusato jacaylkeedii hore balse ay ka sabartay kadib markii heli weysay. Taxanahan ayaa dhalinyarada dhexdooda aad uga faafay waana qiso jacayl oo hore misana dhab u dhacday balse filiim ahaan laga sameeyay. Gabar Soomaali ah ayaa sheegtay in sida Rayaan oo kale aabaheed u malayn jirtay ninka hooyadii qabay gadaal dambe ayay ka ogaatay. Waxay kaloo sheegtay in taxanaha Herjaya ee nolosheeda dhabta ah meelo badan iska shabahaan ama isaga eg yihiin. Isagoo meel fiican maraya ayaa la joojiyay sabab la xiriirta inuu dunida ku faafay caabuqii COVID-19 ama coronavirus. Hadeer wuxuu soo noqonayaa taxanahan weliba waxaa la sheegay in bisha September la daawan doono. Waxaan horey u daawanay labadiisii qaybood ay kala ahaayeen season 1 iyo season 2 isku darka labada qayboodna waxay ahaayeen 38 xalqo. Hadeerna waxaa duubis ku socota xalqadii 39aad oo ah season 3 ama ah qaybtii saddexaad Herjaya waana qaybta ugu dambeysa filimka oo dhan. Taxanahan oo Soomaaliyeed u taqaana magaca Boholiyow iyo Berisamaad Caashiq waxaa la filaa in la daawado inta u dhaxaysa 4 September ilaa 12 September ee bisha nagu soo food leh. Inta ka horeysan hawshiisa ayaa sii socon doonto oo si weyn ayaa loo wada sugayay daafaha caalamka. Intaas markaan kasoo tagna waxaan ku xijinaynaa muuqaalada uga xiisaha badan taxanaha Herjaya intii la daawaday oo soo aruurinay muuqaalada inta badan dadka sheegaan uguna xiisaha badan. Waxa ugu horeeyay muuqaalka marka Rayaan ay iska tuureysay boondada misana Miran iska daba tuuray. Qiyaas ahaan waxaan u maleynaynaa muuqaalkaas inuu yahay xalqada afraad ee Turki ahaan waa marka Rayaan ay nacib tahay Miran sidoo kale tan markuu dhibka u geysto uu gurigii kaga soo tagay iyadana guriga dabka qabisay kadib waa muuqaal uu Azad Rayaan u waday meel kaleeto misana Miran wadada u galay isagoo furaad uu la jiro kadibna meel boonda ay ku wada kulmi doonaan. Miran ayaa Rayaan ka codsan doon inay soo raacdo gacanta ayuu u soo taagay way ka diidaysaa kadibna iyada boondada ay iska doori doontaa oo biyaha ay ku dhex dhici doontaa. Miran ayaan iska daba tuuray isagana si uu badbaadiyo. Waa muuqaal aad iyo aad loo xiisay ilaa imaantadan inkastoo Herjaya season 1 uu ahaa ama bilowga Herjaya uu ahaa waa mid kamid ah kuwa loogu jecel yahay. Muuqaalada loogu jecel yahay waxaa kamid ah muuqaalka Miran uu soo xasuusanayo aragtidii koobaad uu Rayaan la kulmay xilligaasna ma ogeyn inay iyada ka tirsaneyd qoyska reer Shadalog. Waa muuqaal isagana aad iyo aad u xiiso badan. Xilliga meelaha suuqyada uu kula kulmay wuu dabagalayaa weliba waxaa ka dhici doona dhegdhega ama katiinad yar uu jeebka gashan doono inuu la hadlayo isku dayi doono laakiin furad ay soo dhexgali doono. waa muuqaal aad iyo aad u xiiso badan isaga ayaa soo xasuusan doona xilli uu wiifowga saaran yahay. Haddaba muuqaaladaasi waa mid kamid ah muuqaalka ugu xiisaha badan taxanaha Herjaya. Waxaa kamid ah muuqaalada kale ugu xiisaha badan muuqaalka Rayaan la afduubanayo xilli uu Miran imaanayo guriga beerta Casiisan ay ciidankeeda soo wadanayso ay soo weerarayso guriga beerta iyo Nasuh iyo qoyskiisa ay soo weerari doontaa. muuqaalkaas laba jeer ayuu xiiso leeyahay. Marka koowaad Casiiso ciidankeedii soo wadatay misana soo weerartay Nasuh iyo qoyskiisii oo reer Shadalog oo ku wada sugan gurigii beerta maadaama gurigii kale laga soo saaray. Casiisana markaas waxay rabtay inay baabi'iso Nasuh iyo qoyskiisa laakiin Rayaan ayaa la afduubanayo oo cadowgii saddexaad ayaa afduubanay. Miran iyo Hazar Shadalog oo ordayan ayaa iman doonaan Rayaan aawa iyo ku waalan doonaan waxaana la ogaan doonaa in Rayaan la afduubtay halkaas ayna orod ka soo bilaabo doonaan. Waa muuqaal aad iyo aad u xiiso badan sidoo kale tan waa mid kamid ah taxanahan muuqaalada loogu jecel yahay. muuqaalada kale waxaa kamid ah midka Miran gaariga lagu soo weeraray ee gaarigii saaxiibadaha lagu furay doono laakiin isaga uu ka badbaadi doono. waa mid kamid ah muuqaalada ugu xiisaha badan sababtoo ah Rayaan oo gurigii beerta joogto waxay dareemaysaa in Miran uu nafsadiisa halis ay ku jirto ay dareemaysaa waa jacayl oo ay lagu leeyahay.
waa muuqaal aad iyo aad u xiiso badan iyo qaabka reer Aslanbey oo welweli doonaan markay dhawaqa xabadaha maqlaan. sidoo kale tara muuqaalada kale waxaa ka mid ah markii Casiisa ay gubayso gurigii beerta. gurigaas waxay ku jiraan Eliif, Miiraan, Rayaan iyo waliba Azaad. afartaas qof ayaa ku jiraan. Casiisana kama warhayso, guriga ayay dab qabadsiinaysaa. sidoo kale tana afartan qof waxay la dagaalami doonaan qaabkii ay kaga badbaadi lahayn dabkaasi. waa muuqaal aad iyo aad u xiiso badan. qaabkee tusbaxa u qabsanaysa iyo hadallada ay dhahaysa markuu guriga gubanayo waa wax aan la ilaabi karin. mid ka mid ah muuqaalada Casiisa ku xarakaysay markii guriga beerta gubayso. muuqaalada kale waxaa ka mid ah muuqaalka Miiraan u sameynayo Rayaan Wiifooga, waa mid jacayl iyo balamo ku dhisan. muuqaalka u dambeeyay taxanaha Herjaya xalqadii 38 markii Handaan foolinaysay, sidoo kalena Eliif geeriyoonaysay. kanidoodka ma taagna inuu xiise leeyahay, qof walbana ilaa hadda wuxuu isweydiiyaa Handaan ma dhimatay cunugeeda dhintay. sidoo kale Casiisa maxay sameyn doontaa markii ay ogaato in Eliif ay geeriyootay? inkastoo ay ogaatay, laakiinse argoosi nooce ayay ku dhaqaaqi doontaa. waa muuqaal ka mid ah muuqaalada ugu xiisaha badan taxanaha Herjaya. laakiin adiga fikir ahaantaada waa nala wadaagi kartaa muuqaalka ugu jecleed ama ugu xiiseynaysa taxanaha Herjaya intii aad daawatay oo dhan, oo season 2 iyo season 1 ka mid ahaa. season 3 waa la wada sugaya, ama 38 xalqo aad daawaday, mid xalqadii aad ugu xiiseynaysa ama muuqaalkii ugu xiiseynaysa nala wadaag fikir ahaantaada. waxaa la sheegay wiilkii ayaan hore idiin soo gudbin 2 maalin ka hor macluumaadkiisii oo aan idiin sheegnay inay Suldaana dhalayso, misana wiilkii Suldaana uu yahay Gunul Aslanbeyna walaalkeed uu noqonayo, misana taxana uu soo galay. isla wiilkaas ayaa la sheegay inuu yahay cadawga saddexaad ee fariimaha dhambaalaha u soo diraya Casiisa Aslanbey. wiilkan wuxuu doonayaa inuu Casiisa ka arsado una u argudo hooyadiisii Suldaana dhibkii ee Casiisa u geysatay. wiilkan waxaa la sheegay inuu dhexgali doono jacaylka Miiraan iyo Rayaan, uu wanteed ku noqon doono. sidoo kale tan isaga Rayaan ayuu jeclaan doonaa, laadir galamiyuu noqon doonaa oo Casiisana cadow ku ah, Miiraanna cadow ku ah. lama oga taxanaha Herjaya markuu bilowdo ayaan ogaan doonaa. daawadayaasha qiimaha badan kanaalka hadaa ku cusubtiin subscribe saarta, baleelkan ha ilaawayna, share dhaha saaxiibtiina la wadaaga si warbixinooyinkan xiisaha leh uga faa'iidaystaan. warbixintana waa mid muhiim ah si uga faa'iidaystaan. warbixintana like inoo sar hadaad ka heshid. wixii su'aalka qabtid ama fahmi weys comment ahaan inoogu reeb. sidoo kale tan la wadaag muuqaalka Herjaya aad ugu xiisaysid dhanka inta aad daawato dhan. waxaad kaloo nala wadaagtaa haddii Herjaya intaad daawanaysay aad la kulantay wiil ama gabar uu jacayl dhab ah ku dhacay ama jacayl dhab ah ku soo xasuustaan taxanaha Herjaya intii daawanayeen, sababtoo ah macluumaadida idin wadaagnay midkaas ayaa ka mid ahaa oo wiilal iyo gabdho badan oo Soomaali ayaana qarteen markii Herjaya daawadeen in jacayl dhab ah ay dareemeen. sidoo kale tan ama ku soo xasuustaan qisadooda noloshooda dhabta ah iyo Herjaya meelo badan iska shabahaan. waana la wadaagi kartaan fikir noocaas ama sheekooyin noocaas haddii aad hore u maqasheen ama haddeer idin qaar idin ka mid ah xitaa ay haysato. وما سنتي وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.